wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore iyo waliba gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa maanta u furay shir ay hay'adda SVO iyo hay'adda diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta magaalada Laascaanood ugu qabtay dhammaan hay'adaha gobolka Sool ka shirkaas laga hadlay arrimaha abaaraha iyo waliba xaaladda degdega ee gobolka Sool sida waxa lagu qabtay magaalada Laascaanood la soo daadajiyo shirkana dhammaan kalastarada dhan buu iskugu jiraa wasiir hadda waxaan halkan ku soo bandhigaynaa waxa kaarantiga hadda ka socda gobolka oo ilaa Xaysimo ilaa iyo Buuhoodle deegaanadaas ka socda run ahaantii waxaan kaloo hadda saad adigu nagu boorisay hadda ka hor kalastarka waxaad amartay in xaaladaha gobolka Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle loo dhabar adeego oo ma garanaysaa asasman laga soo sameeyo asasmanadii aad adigu dirtay baan xitaa hadda halkan ku soo barasgareynay oo ma garanaysaa xaaladda dhabta ah ee gobolka ka jirta aan soo barasgareyn markaa wasiir waynu iskaashanaynaa ka hay'adahan iyo ka dawladahan ma kala maaranno xaaladda gobolkuna meel emergency maraysa insha Allah wixii warbixinayna wasiir markasta kula soo shaqeynayna waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdiqani Maxamuud Jiire oo ku booriyay hay'aduhu inay ka qayb qaataan abaaraha sida ugu dhaqsaha badan waliin hay'adaha halkan isugu yimid iyo barnaamijka wada hadlaysaan runtii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo qabanqaabayaasha shirkanba aad baan salaamaya SVO runtii waa shir loo baahnaa muddo dheerna aynu sugaynay shirarka noocan oo kale ah wadogtiino waqtiga hadda aan ku jirnaa waxay la adag waxay la roobaadkiya dadku roobku ka daahay meel dhifo wax yar heleen mooyee xaaladii emergency-ga ahayd casaanka weli ku dhaweyd gobolkeena still way taagan tahay biidhaamiska wuu socdaa abaari way socdaan way taagan tahay waxaan leeyahay shir baan mar sugu nimid intiina badan oo aynu kaga wada hadlaynay bal in dadka wax la gaadho jawaabaha hay'aduhu sidii kulay iyadoo meel kale waxay kaga xidhan yihiin uma firfircoonayn waan jecelahay in dadka loo gurmado wax loo gaadho wixii itaalkina barnaamijyada wadaan iyo waxa laga shaqooyin badan oo wanaagsan inay qabataan oo bulshadeena hay'ad kasta timaadana ama shaqo abuur soo kordhiso ama waxa weeye wax bulshadu u aydo ku soo kordhiso dadka iyo deegaanka laakiin haddii aan gobolku la socon waxa aad qabataan waxay ka dhigan tahay in xaaladinu aysan ahayn marka anaga waxna la ka weydiiyo ama su'aalna la ka weydiiyo inaan information badan ka bixin karin sababtoo Soomaaliya xitaa war la helaba tala la hel hal arrin oo idinku boorinayaayo informationada iyo wararka si joogto ah aan kala helno idinka idin wanaagsan tahay gobolka wanaagsan tahay warbixinayna wanaagsan tahay meelaha aad ka shaqeysaan runtii ama caafimaad baad imika sheegteen biyaha ka hadasheen maxaa la yiraahdaa protection baad sheegteen wax badan oo runtii dadku u baahan yihiin bulshadeen baad wax ka qabataan salahan MSH-da kale aan mararkan meelaha booqdo waa tagaa MSH-da qaar xidhan ma u tagaa waxa laga yaabaa in MSH-ka 20 qof 10 qof oo shaqaale ku qoran hay'adaha waxa laga rabaa dabagal ku samaysan dadka lacagta siisaan qofna uu bilaash lacag u qaadan dadku waxay u baahan yihiin in loo shaqeeyo oo loo qabto macna sababta hadalka MSH ay ku jiraan saddex ama laba hay'ad ay ku jiraan haddana MSH si effective-keeda loo baahnaa aan u shaqeyn oo howlgelin marka waa mas'uuliyad idinka saaran maadaama cidda salariga siinaysa aan Laascaanood joogin haddaad qoranaysaan inaad qortaan dad deegaanka laga heliyo shuruudda marka hore ku qaadanaysa qofku inuu ummadda u shaqeeyo oo mushahar ku qaadanay waxyaabo soo hoos ugu degtaan baa loo baahan yahay imika wax emergency aad wax ka qabanaysaan oo loo fadhiyo waan idinka suganaa oo idinka mahad celinayaa shirkan iyo meeting hoos u degay gobolka yimid shirarka noocan kale inoo socdaan runtii anagu waxaan ku howlanayn intii aan meesha nimid inaan sameeyno xafiis toos hay'adaha wala xiriira oo gobolku leeyahay waa shaqo kale aan qaban boodada projectyada isagu soo diyaariya hay'adaha la xisaabtama dabagala insha Allah hawshan waa ku jirnaa si la soo ogaado information la kala helo oo aan gaab imaanin meesha aad baan idin salaamayaa dhamaantood salaamta
wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa isaguna halkaas ugu mahad celiyay ayada halkaas isugu yimi gaar ahaan hay'adda SVO iyadoo soo salaam ala rasuulina nabiyina Maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa halkan maanta lagu hayaa shirkii xuseynaya abaaraha Netford oo la soo daadejiyay oo heer gobol yimid annaguna aanu joogno aniga gobortoorihii iyo rag badan oo kale madaxa sharaf bay inoo tahay maalinta ka dambaysa in maamulku uu hoos u sii daadego hay-aduhu ay xogogaal noqdaan oo ay dalka hoos u soo daadejiyaan degmooyinkii iyo tuulooyinkii inaad ku siqdaan meelaha ay dhibtu ka jirtona inaad taabataan shalayta dhul badan baanu maray aad iyo aad u badan ayaan maray ka wasiir ahaan iyo rag badan aan wada soconay malaha sidaan 7 aroornimo u bilownay socodka waxaanu nimid 5 galmood aad iyo aad baanu u aragnay dad badan oo baahi qaba baahida ilaah baa dabooli kara laakiin intii aynu awoodi karno mana lihi hay-aduhu wax kasta way qaban karaan laakiin kulli qorshaha jirana waxa weeye in aynu yeelano qorshe dhow iyo qorshe fog ilaa meelaha remote-ka la gaadho fog hadii jeer hay-aduhu waxay ku soo ururaan inay daneeyaan inay tagaan meelaha noloshu ka jirto ee wadooyinku ka jiraan hodheeladu ka jiraan oo aanay jeclayn sabaws dhulka fog ee sida deegaanada dhaadheer ee laamiyada aan lahayn waxaan markaa aad iyo aad ugu faraxsanahay ama aan idinkula talinayaa inaad idinkoo wada socdo oo guruuba sababsaad 3 qaybood isu qaybisaan oo kale aad martaan dalka sababs gobolka Sool oo kale inaad martaan from xalin ilaa iyo meesha la yiraahdo haddii alla xukmaayo ilaa kacaya iyo cirifyada uu gobolkani ka koobay ilaa qorile ilaa iyo dharkeenkii sidaa xogogaal u noqotaan laakiin haddaad idinkoo la sacaarood fadhidaan reer Hargeysa un baad noqonaysaa yaa haddaad halkan intaad miiska iyo qalabka saartaan idinkuna Hargeysa labaad baad noqonaysaa marka waxaad leedahay warbaxa taga horta idinkoo gobolladii iyo deegaamadii soo wada maray oo dadka soo wada taabtay dabeedna intaad isu timaadaan discussion bilaaba 2 qorshe uma samayn kartaan qorshe dhow iyo qorshe fog midi waa qorshaha fog oo aad wax ku dalbaysaan oo aad international community-ga wax kaga hadlaysaan waxna waa wax dhow oo markaa dad baaba dhiig joojin u baahan dhiig joojintuna waxa laga yaabaa inay heli karaan oo ay ugu mudan tahay biyo in la heli kara laga yaabaa marka booyad ama 2 ama 3 ama 5 ama 10 tuulo la siiyo ama dad dhiban ama vulnerable groupka hooyooyinka caruurta dhulka ay nolosha ugu adagna waxa ku nool dadka vulnerable ko caruurta iyo dumarka iyo dadka waayeelka ayaa nolosha ugu adag ku nool marka adeeganada tagto waxaan qabaa inaad runtii anigoo isla rag karti iyo dumar kartiliba waa joogaan inaad xogogaal dhaba noqotaan hay'adaha qudhood reportka sababs washka oo kale aniga waa oday Soomaaliland war kasta oo aad tagtaan iyo goob kasta oo aad tagtaan waa la soo dhigay waa la soo weydiiyaa waxaan maxaad kala socotaa hay'adaasi waxaas ay u tiri cidaas ay tiri maxaad u aragtaa waanu idin farfay garanaynaa waxaan oranaynaa cidaasi hawl macna leh haysaaye la shaqeey laakiin meelihii taga ogaad aad iyo aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa markii ugu horeysay shir noocan oo kale lagu qabto magaalada Laascaanood oo lagu naaqishayo dhanka abaaraha iyo hawlaha degdega ee ka jira guud ahaan gobolka Sool waa Barkhad Cumar Axmed warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.